السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تينات بان السلام يا شيخنا وانو همبليين يا إذن كنا وحنا ديك عصنا هنا يدعو عيسان أدبوا مهسنتين ما شاء الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم وعن صاحبة شرفت له ما أنت وحن ربا إن كارلو موضوع رنتي مهمة تتكون آد سكول دحوريجيان إن صاحب الموضوع سوحوي هاي إن فنانكي سوماليات فنكا سجب حي لقوا مجعابي جري محمد سعيد بيكي إن لقوا أركي سجوا مساجد ذا لو جد عين إسلام مركزنا لجوا علماء بل سدت كقار أي أفهمين أما أفسرين إن فنانكي هره إن لو قبنا يتوحيد كي شهادة إن صاحب يال إن تذكر أيا وحي تذكر دونيان إن كذا دعسيان إن وحيابا أنجرين تاسي أو محمد سعيد بيكي إمن كشهادة لو قبنا تاسي معناه دون أي تهي قف كفنان كأهي إن أما فنانين تا أباهين هذه فنك كتوبت كنان إن شهادة يتوحيد كلو قب تمركله صاحب يال dad badan oo imika fanaaniin ah oo runtii sida aan u fahmay aan ku farxin go'aanka uu qaatay Maxamed Saciid Biki ayaa waxa ay baafinayaan war xun kaasi oo ah in Maxamed Saciid Biki la geeyay masaajida kadibna loo qabtay shahaadada ama tawxiidka bal arintaas maxaa ka jira waxaan rabaa inaan idin la wadaago muuqaal laga soo duubay Maxamed Saciid Biki iyo sheekha qudba ama muxaadara ka jeedinaya masaajid oo isgarab taagan isla markaana ka hadlay ujeedada maxaa la yiraahdaa kulankan iyo qaabka Maxamed Saciid Biki uu u yimid masjidka bal aan daawano muuqaalkan kadibna isku soo laabano الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا جمع مساجدكم أي وقاين جمعي هوري وعينو كهذا الله dhiirigelinay walaalaha heesaha iyo waxa la xiriira ka shaqeyn jiray ama ku hawlana Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii uga toobad keenay sidii oo kale maantana waxayna soo booqday oo inoo yimi oo nala soo tukaday walaalkeena Maxamed Mubaarak saaxiib yaal sida sheekh uu sheegayaba waa un dhiirigelin loo sameynayo walaalkeen fanki isaga baxay iyo maxaa la yiraahdaa dardaaran loo jeedinayo kuwa imika ku jira la doonayo inay isaga baxaan ama lagu waaninayo bal aan sii dhageysano khudbada oo sii socota wali waxaad moodaa inuu afkee kala baxay waxaan haddeer ka fikiraya inaan idhaahdo maxamed bike baa lagu odhan jiray bikeegaasi barak ku noqonaya insha allah marka isagaaba yidhi hadda intaan anigu odhan maxamed mubaarak ilaahay subxaana watacaala ha ku barakeeyo rabbina subxaana watacaala dhammaanteenba towbadda hayna waafajiyo dhammaanteenba khalad iyo gaf weynu gallaa sharaf bay u tahay qofku inuu ilaahay subxaana watacaala uga toobad keeno ilaahay daraaddiina uga tago wax laga yaabo inuu markaa muuqaal ahaan dadka ugu muuqday inuu magac iyo maamuus iyo sharaf u leeyahay ama adduunyo in laga helayo hadduu ilaahay daraaddi uga tagana ilaahay baa subxaana watacaala ugu bedelaya wax ka khayr badan waxaynu sidan u samaynaynaa waxaynu dhiirigelinaynaa walaalaha kale iyagu weli kusii harsan oo aynu leenahay walaalaha faraha badan ee arrinkaa xumaantiisa dareema ee ilaahay daraaddi uga tegey sunno fiican bay jideeyeen oo ku dayasho mudan idinkuna insha allahu tacaala waad ku dayan doontaan sida ay yeeleen ayaad yeeli doontaan dadka qaarkood oo khayrka dadka kala dagaalama sharka iyo xumaantana ibliis u wakiishay inay u ololeeyaan waxaa laga yaabaa qaarkoodna waabay yidhaahdeen be inay yidhaahdaan ma qof gaalaba qofkii oo shahaada loo qabanaya walaalkeen maxamed iyo ragga la midka ah marka horeba dad muslimiina bay ahayd inaguna waynu dambaabnaa maaha macnaheedu inay iyagu un khalad ay ku jireen oo inagu aynaan khalad gelin laakiin iyaga iyo dadka la midka ah sidaan jumcihii hore sheegay waxay dadka kale kaga duwan yihiin dad la eeganayo oo lagu dayanayo oo dad fara badan shaqada ay qabanayaan ay ku dambaabayeen ayay ahaayeen saaxiib yaal sida sheekhuba uu sheegay Maxamed Biki iyo dadka la mid ah imikaba fanka ku jira ma aha dad gaala ah waa dad muslimiin ah isla markaasina dambaabay oo dambi ku jira
sida caadada bini aadamka ay tahana qof walba waa uu dambaabaa laakiin waxaa waajib ah in dembiga laga soo laabto maxamed bikey dembiga ayuu ka soo laabtay ma aha nin diinti kusoo biiray hadda oo tawxiid iyo shahaado loo qabanaya arrinta ahna in magaciisa maxamed bikey ahaa lagu bedelo maxamed mubaarak waxay ka dhigan tahay in magacii shalay uu xumaanta iyo fasaadka kula jiray maanta uu isagina ka tago oo magac cusub uu wanaaga maxaa la yiraahdaa iyo khayrka ugu jirayo uu soo qaato taasina ma aha wax weyn ah oo ka dhigan in qofku shalay uu ka baxsanaa diinta maantana uu kusoo biiray bal aan sii dhageysano inta ka dhiman muxaadarada haddii ay iyagu khaladka ka tagaanna dad fara badan tusaale u noqonaya oo ummadda dhexdeeda iyo gaar ahaan kuwii taageeri jiray insha allahu tacaala raad ku yeelanaya ma nihin takfiiriyiin aaminsan qofka muslimka ah waxa weeyaan heesa oo muusig garaaca ama inanta tusaale ahaan isqaawisaa inay gaalo tahay waxaynu aaminsanahay waxaas inuu macsiye khalad yahay waajibkuna uu yahay qof kasta oo muslim oo dambaaba inuu ilaahay subxaana watacaala u toobad keeno saaxib yaal sida sheekhu uu sheegay dadkan fanaaniinta ama fanka ku jira dad badan ayaa taageerayaal u ah oo eeganaya wax ay sameynayaan isla markaasina dembigoodu waa uu ka ballaaran yahay dembiga dadka daawanaya sababtoo ah ayaga ayaa hogaamiyaal u ah oo dadka ku hogaaminayay xumaanta waxaan rajaynaynaa inaad fahanteen qodobkaas aadan u qaadan sida dadka qaar ay u fasireen oo ah in bikey tawxiidka loo qabanayo dadka fanaaniinta ahna lagu tilmaamayo inay yihiin gaalo waxaan rajaynayaa in fikraddaas iminka fikrad ka duwan idinka dhaadhacday taasi oo ah in la soo dhaweynayo dadkii fankii ka baxay kuwa iminka ku jirana lagula dardaarmayo inay ka toobad keenaan saaxiib yaal ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan soo qaato hadalkii ugu dambeeyey maxamed siciid bikey uu ka jeediyey goobtaas oo ahaa in loo duceeyo laguna dhiirigeliyo tallaabadan uu u qaaday maxaa la yirahdaa dhanka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa shiikhana waan u hambalyeynayaa idinkuna waxaan idinka codsanayaa inay ii ducaysaan aad baa u mahadsantihiin maasha allah baarak allahu fiik jazaak allah khayr allah yubaarik saaxiib yaal halkaas ayaan rabaa barnaamijkan kooban inaan kusoo gabagabeeyo waxaan rajaynayaa inaad kala fahantaan waxyaabaha qaldan iyo waxyaabaha saxan social mediaha mar walbaba wanaaga iyo xumaanta ayaa ku badan waxa khaldan iyo waxa saxanna waxa khaldan ayaa ku badan dadka faafinaya in maxamed siciid bikey tawxiid iyo shahaado loo qabanayo oo shalay uu ahaa ruux aan muslim ahayn waxaan rajaynayaa ayaguna inay ka waantoobaan arrimaha noocaas ah waan idin salaamayaa saaxiibayaal